naga baxay caalim dhakhtar jaliil ah oo lagu magacaabo Abulqaasim Khalaf bin Cabbaas Az-Zahraawi. Reer galbeedkan waxay u yaqaanaan Abulqaasis. Wuxuu ku dhashay magaalada Az-Zahraa 936 miilaadiga, wuxuuna ku soo barbaaray caasimadda Andalus ee Qurtuba. Xilligaas, Qurtuba kaligeed waxaa ku yaalay 50 isbitaal iyo 70 maktabad. Wuxuu ku soo aaday xilli horumarkii Andalus meeshii ugu fiicneyd ay maraysay. Halkaasuu ku soo bartay cilmiga caafimaadka, wuxuu noqday dhakhtarka khaaska ah ee madaxweynaha xilligaas, Al-Xakam Athani oo lagu magacaabi jiray. Laakiin noloshiisii iyo dadaalkiisii wuxuu u horay dadweynaha ummadiisa qaabku u daaweyn lahaa. Khaas ahaan dhanka qaliinka uu aad ugu fiicnaa. Waxaa loogu magac daray Abil Jaraaxa Al-Xadiitha, aabaha qaliinka casriga ah. Wuxuu ka mid yahay dhakhaatiirta ugu waaweyn ee taariikhda xusto. Taariikhda basharka marka la fiiriyo, Az-Zahraawi waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay qofka ugu horeeyay ee qaliin sameeyay, oo sida hore u soo sheegnay waxaa loogu magac daray aabaha qaliinka casriga ah. Muddo 50 sano ah uu daaweynayay qaliinka noocyadiisa kala duwan uu sameynayay. Khibradaas wuxuu ka alifay kitaab dhan 30 mujallad oo uu ugu magac daray At-Tasriif Liman Cajiza Can At-Ta'liif. Qaybaha kitaabkiisa uga hadlay waxaa ka mid ah orthopedics, cilmiga lafaha, pharmacology, cilmiga daawada. Waxaa la tilmaamaa inuu yahay qofka ugu horeeyay ee sameeyay daawo, kiniiniyaal, qaabka loo sameynayo, tilmaamay sida dadka loo siinayo iyo wixii hoos imaanaya daawada oo dhan. Sidoo kale waxaa ka mid ahaa ophthalmology, cilmiga indhaha, pathology, cudurrada guud, surgery, qaliinka uu aad ugu dheeraaday oo qayb badan oo kitaabkiisa uga hadlay. Kitaabka waxaa loo turjumay luqadda Laatiinka ah qarnigii 12aad, wuxuuna muqarrar ka ahaa jaamacadaha Yurub ee caafimaadka ah muddo 5 qarni ah. Qaybta ugu badan ee kitaabkiisa wuxuu uga hadlay qaliinka. Markaa fiirisid kitaabka waxaa ku sawiran qalabka qaliinka uu isticmaali jiray, mid walbana waxaa ku hoos qoran qaabka loo isticmaalo. 200 oo ka mid ah qalabkaas asagaa soo alifay oo soo ikhtiraacay. Wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee sameeyay dunta gudaha jirka lagu talo. Wuxuu ka sameyn jiray mindhicirada yaanyuraha. Sidoo kale wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee isticmaalay suufka iyo sharootada oo maanta adduunka meel walba laga isticmaalo xilligan. Kitaabkiisa wuxuu ku xusay waxaa ka mid ah hab maanta loogu magac daray Cochrane's method, oo ah qaab ka mid ah qaababka loo dabiibo qofka markuu garabka kala baxo. Laakiin magaca markaa fiirisid waxaa arkaysaa in loo nisbeeyay habkaas nin la dhaho Cocher. Laakiin Abulqaasim ayaaba ugu horeeyay oo kitaabkiisa ku xusay. Sidoo kale wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee ka hadlay toosinta ilkaha. Wuxuu tilmaamay inuu iskugu xiri jiray birta iyo maarka. Sidoo kale wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee si faahfaahsan uga hadla habka qaliinka hooyada uurka leh iyo sida loo soo saaray ibida darbiga ka soo foqoweyso iyo midda soo kala hartay intaba. Qalabka uu sawiray waxaa ka mid ahaa bir uu tilmaamay inuu ku soo saaro ilmaha dhintay. Wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee tilmaamay sida loo joojiyo dhiigbaxa xididada yaryarka ah. Wuxuu isticmaali jiray qalab uu soo kululeeyay, saasna dhiigbaxa ku joogsan jiray. Waxaa cajiib ah maanta isla habkaas oo la casriyeeyay la isticmaalaa. Laakiin waxaa nasiib darro ah in loo nisbeeyay Emry Wasberry oo ka dambeeyay dhakhtarka muddo 600 sano ah. Taas kaliya maahan, cilmi badan oo noo soo gudbiyay doctorkeena ayay xadeen reer galbeedku. Ilaahay ha u naxariistee, Abulqaasim wuxuu dhintay 8 Ramadaan 400 Hijriga oo ku aadanayd 1013 miilaadiga.